بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي baa mahadleh ina siiyey amni iyo barwaaqo iyo roob iyo caqli iyo diin iyo wanaag badan iyo dowladnimo ilaahasaa mahadoo mahadnaqaynaa inaynu ku shukrino inaguna wixeena wanaajinaa wanaagsan kolka saaka waxa ka dhacay dagaal uu ka dhacay magaalada la yidhahdo Fadhigaab aad iyo aad baan uga xumahay ummadduna way ka naxday gobolkaas Sanaag Ceelafweyn gaar ahaan muddo dheer oo sannado badan ah ayaa arrinteeda lagu jiray in la xalliyo si dowladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba waa loo galo waa lagu xalliyey muddo dheer iyo wakhti badan iyo daal badan ayay Soomaaliland oo dhan u gashay in arrintaa xal waara laga gaaro waana la isla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laba firay waa u ducaynaynaa Ceelafweyn iyo jiidada ka degan in ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go'daaye ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynaynaa waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo bishii rabadaanna waa inagu soo dhowday ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuuna siiyey nabadna waa ina siiyey maanta col kale oo cudurina waa ina hayaa aynu ka baqayno adduunkao dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ee la iskaashan lahaa maaha maalintii xabadda isku bilaabi lahaa waxgaradka iyo waayeelka waxaan u soo jeedinayaa in arrintaa halkaa lagu joojiyo taa intaasaan ku dhaafayaa cudurkan maanta adduunka gelgelay COVID-19 ilaahay maada ka gadheedo weli waa sahlannahay dalkeenna cudurka waa lagu arkay waa lagu hayaa kaysas dhowra ilaahunba aynu baryaya inuu naga badbaadiyo waayo waa xanuun aan dal xoog leh iyo dal dhaqaale leh iyo dal caafimaadkiisu wanaagsan yahay iyo ku aan lahayn iyo ku faqiiraba u siman oo wuu simay adduunkii oo dhan ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu naga nabadgeliyo oo uu arrintaas si sahlan ilaahay nooga dhigo safmar fudud oo intaa ay tahay aanay nagu dhaafin taasina waa baryada ilaahay dadka dalalka aynu idaacadda ka dhegaysanno ee Yurub leh ee Maraykan leh iyo inagu isku si uma wada naallo isku dhaqan ma nihin isku dhaqaale ma nihin sidaynu bulshadeenu u dhaqantiyo toodu waa kala jaad inagu maanta ma odhan karno dadka waynu xidhaynaa oo guryahaanu ku xidhaynaa ma odhan karno waayo duruufteennu inooma ogola kolka hore bulshadeenu siday u nooshahay waa dad wada isku xidhan qoys ahaan oo guri ku wada nool oo meel waxood ku wada cunaa oon kala maarmi karin iyagu waxay u noolaayeen qof qof ay dowladdu ka wakiil tahay ma odhan karno meel walba waanu xidhaynaa waayo haddii aynu dadka xidhno marka hore dadkii xidhnaa guryo nin walba qof gaar loogu xidho qof walba qol gaara uma helaynadii suurtagal maaha marka haddaynu xidhno waa dhibaato soo kordhay innagu waxaanu qaadanaynaa halka iyagu dhahdaan dad magaalooyinka hala xidho innagu waxaanu qaadanaynaa aynu dhibaatada yarayno dhibaatada aynu yarayno dhu jeedsanayna maadaama aan suurtagal noo ahayn sidaynu u yaraynaa dhibaatada waxaanu ku yarayn karnaa innaga oo qaadana talada dhakhaatiirta innaga oo qaadana talada dhakhaatiirta intii suurtagalaba in la kala fogaado laba waxaa kale laynoogu daray waa faraxala waaba sunne waa luqluqasho waa sunne 5 goor baa ilaahayna yidhi maalintii sankana biyaha ku shuba luqluqda faraxasha 5 kale aan ku darra ama 10 kale maxaa ku xiga waxaa ku xiga dadka waayeelka ah iyo dadka cudurrada gaarkaa qaba ee u nugul iyagana aad loo sii daryeelo haddaad waalidkaa jecleedu meel joogo waxa wanaagsan inaydaan ku buuqin oon 10 qof oo suuqa soo tagay u tegin kii bukooda inaan loo wada tegin waxa la bahalka wuxuu ku faafayaa haddii nin xanuunsanaya uu miiskan taabto
ood ka daba taabato waad qaadaysaa dabcan waan isku xidhannaho kama maarmi karno basaskii waxaanu aanu yarayno waa yahay haddii baskii kii ka soo baxay uu sii taabanayo oo kii sii fulayo uu taabanayo oo adna aad taabanayso tiradii aynu yaraynay wax badan may tarin marka maxaa loo baahan yahay haddaan baskii iyo meeshii la gelayay biyo iyo mid hor olin qofku wuxuu samayn karaa inuu gacantiisa ama waraaq qaato iskaga qabto ama uu mara qaato wuxuu taabana iskaga taabto ma aha uun waxa yurub laga isticmaalayo iyo siday jiraan inaynu raacnee inaynu fikirkeenaan laga rabaa afka haddaad ku xidhan maro boqolkiiba tiro xoog kaa yaraynaya ood kulba maradaa bedesho haddaan golofis weyna gacanta waynu duuban karaa markaynu wax ku qabanayno siyaalo badan ayaynu iska dhowri karaa masaajidadu waa masaajidada ilaahay ciidanan baa odhan masaajid qoraha la isla taagaa la xidho laakiin xaramkii baa la xidho oo la ka maqnaada masaajidkii nebigaa la ka maqnaada oo muftigii qiblada aynu u tukanay ee aynu u xajnay u cimraysnaa wuxuu yidhi dhibaatada jirta awgeed taraawiixdana rabaan tahay imanina masjidkii weynaa xaramka ahaa iyo kii rasuulka sala allahu caleyh wasalam waayo caafimaadka dadka wax la ilaaliyo ugu badan innaguna waxaanu leenahay maadaama uu xanuunka inagu jiro oo aynu hubno ururadii uu masaajidku ka mid yahay dadku guryahooda ha ka tukadaan masaajidkii marka intaasoo qof isku timaado ee kii ka horreeyay halku sujuudaad ku sujuuddo ee kii soo galay adla soo gasho ee umitire bar kuu jiro dee ilaahay baa inoo fasaxay maaha wax aynu diintii ku gafayno inaynu isfaham weyno ma aha waxaanu leenahay culimada iyo dadka oo dhanba war caafimaadkeennii baa ku ege sida inoo roonay caafimaadka dadka odhanaya welinaba gaadhin markii la yarayn lahaa jamaca in la soo dhowaado oo waa in sidii loo camraa ma markaynu boqol tartabo soo dhacaabaynu wax qabanayna inta aanay inagu dhicin baynu leenahay saa lagu nabadgelaya ka digtoonaano hadday dadku soo daataan dawo male meel aynu ka dhigno male waxaa la yidhi qofka u dhinta cudurkan xitaa lama aasi karo oo looma dhowaan karo oo lama taaban karo meel fog baa janaadisa inta lagu xidho qalab dadka ilaaliya lagaga tukanaya mara cadoo kafara dusha lagaga xidhaya wixii ay dhakhtarku soo xidhaan waayo waxaa la nabadgelinayaa dadka marka in waxa aynu isla fahmi weyno ma aha taana waxaan leeyahay culimmadu qaybta u weyna ka qaateen si aynu dadka u badbaadinaa cibaadada ilaahay waa la wada ogolyahy muslim baynu wada nahay masaajidada iyo cibaadooyinka iyo shacairta waynu ogolahay soo cidina farin laakiin wixii dadka badbaadinaya aan ku daro jamaca la isku weyna masaajidka dhowi dhakhaatiirtii way nooga digeen wax walbana waxaa qofkii yaqaana hala weydiiyo hadday laba qof dhaxal isku qabsato culimada loola taga hadday dhibaato caafimaad dee dhakhtarradaynu weydiinayna dowladdu taa ma amrayso anugu ma amraayo waa dhakhaatiirta caafimaadkoodii taana waxaan leeyahay ha la kala durko intay suurtagala dhibaatada aynu yarayno aynu isdhegaysano ha dhowto meel aynu ka ururday aynaan gaarin ilaahayna waynu barana inu naga dulqaado dhibaatada labaad waa qaadku waa mashkalad inoo taalla isagoon xanuun kale imanba dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan oo bulshadeenii burburiyey dhaqaalaheennii baabiiyey dhaqankii inaga xumeeyey ka cuna iyo ka iibiya iyo nin waliba waa qiraya waana ilaa iyo intuu jirayba waa la qiraya dhibaatadiisa ninkii qaadka cuna intaanu fayraskanba iman caafimaad ma leh qoysku wuu dumaya carruurtu way ku lumaysaa mujtamaca inta xashiishka u keenay magaalada in laga guri kari lahayo waa qaadka sanadkii malaayiin doolar baa inagaga baxdo oon waxba inoo soo weyaarin oo dhaqaalihiina uu ridaya intaasoo dhan haddana waa la waaniyey culimmadu waa waanis caafimaadku waa waaniyey dowlad ahaan waa la waaniyey waa masiibo ina dhex taalla sidaynu qaadkii ka yaalla baa timid haddaynu dhaha la joojiyo weligiiba qaadka 3 gooraa la isku day la joojiyo 3diiba uu ka xoog waayay dowladaha tii ingiriisku badday dhigi jirtay waa la qaban kari waayey waa shaydaani tii dictatorkiisii aad barray ee looga awoodi lahaa idaa baabisay qaadka dowladdu iyo dadku ilaa dadkan iibiya eele ee mulkiyaasha aynu wax isla gaadhna see laga yeela haddaynu isku qaadno xadkeenna geed ma leh bad ma leh buur ma leh meel quri ma xanibayso intaa haddii aynaa nimanka soo waaridaya ma go-aan ka wada gaadhin la isku ogyahay oo barbaa diyaar waa inay joojiyaan
bar baanu ahayn waanu wada xalina kan kale imika ogol inuu joojiyo isna uu bilaabay beris haddii la bilaabo ciidan eryada iyo hala qabto iyo halka ka soo dhacay waa dhibaato waxaanu ku jiraa in nimanka baalkaa soo waarida meel isla dhigo isagoo kolka horeba intaasoo dhibaato lahaa maantana inta gacmoodu soo maro ta laga soo gooyo ka kale sii taabta jawaanka lagu xidho waa la hubaa dhibaatada u weynayno taalo wey marka waxaanu eegnaa sidee ugu dhib yar eenu dhibaato kale inuu garan loo joojiya weligiiba haddaynu helo in la joojiyo iyo imika sidee dhibaatada loo yaraa insha allahu ilaa beritana arrintaa nimankii baalkaa waa la isku noqonayaa meel wacan bay wax soo dhigeen qaarkood waa ladan yihiin waxaan ilaahay ka rajeynaya inaynu isla go-aan qaadano aanay noo keenin dhibaatada aynu ka wareegno soo geliyo isagana intaasaynu ku dhaafaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka qayb qaatay sidii xanuunkaa loogu hortegi lahaa caafimaad leh culimo leh aqoon-yahan kale leh ciidamo leh mid ducaynaya leh mid waaninaya leh waanu wada mahadnaqaynaa waxaan waarinayaa dhallinyarada xoogga ah jaamiciinta ah waxbartay sekondari leh dadka kale wax aqoonta ah in dadka la wacyigeliyo oo wada fadhigan cidhiidhiga in loo baahnayn siiba dhallinyarada haddii jaamacadii laga fasaxay oo iskuuladii laga fasaxay dee waxaa la doonayaa inay dadka wacyigeliyaan ay wax u qabtaan ay gudaafada la guraan oo magaalooyinka iyo xaafadaha ay ka shaqeeyaan lama rabin inay ku soo ururaan miis ay internet ka wadaawadaan ay konton miis yar kusoo fursadii lagama filayga kuwa mutacalimiinta ah lagama filay waxaan leeyahay farar kala saar dhallinyaradana saaran wixii dowladda ka qaata mushaaharo ee organisation jira iyaga waa la habeeyey hadday shaqo qaran yihiin hadday macalimiinta fasaxaa yihiin iyaga gobollooda lagu xidhay waxay la hawlgelayaan gobollada haddii nadaafadda guraayo haddii dadka wax soo dhacaanoo loo gurmanaayo hawshaasi haya inta kale faraha badanna waa in ay ka qayb qaataan sidii cudurka looga ay tusaale noqdaan inanka jaamiciga ka mutacalimka dhallinyaradu waa inay tusaale noqotaa ka aan wax garanayn ay waariyaan ee maha iyaguna soo horsadaan marka soo ururaan dowlad ahaan hawl baa nagu soo kordhay dhaqaale u baahan tahay dad baa xanuunsan kara cisbitaalaynu u baahan nahay intaa waxaa dheer dhaqaali baa yaa dee khalkhalaya danyartii waa shaqa beelaysaa dhibaatooyin badan nagu soo socda waxaanu go'aaminay in loo furo account lagaga hortagaayo wixii dhaqaale loo baahaya oo la isugu tago dowlad iyo baac mushtar iyo ciddii kale eena caawinaysa ee adduunka ah inaynu u furo account baan ka furo oo halkaa lagu soo ururiyo oo loo diyaar garoobo haddii hawl soo cuslaato ilaahay baa inaga fudaydiyey dowlad ahaan 3 milyan baan ku shubanaa sanduuqa oo aanu ka goynay mashaariicda horumarka ahayd gunooyinkii iyo wixii kale lahaa kay kale dowladdu ay leedahay iyada oo dowladdana uu saameynaya dhaqaalaha istaagay uu hoos dhac badan ku imanayo meelaha soo socda haddana xilka waxa weeye waxaan ugu talagelaynaa dadka hawlgalayo caafimaad wixii loo baahdo qalab waxaanu ka tari karno tujaarta iyo baacmiska waxaa la farayaa hadday sakadoodii tahay iyo sadaqa iyo waxtarba inay maanta dadka la gurmad galaan oo xoolahooda kala howl galaan dowlad iyo shicibba in cudurka laga horto horena waa ugu sheegay waana dad mas-uula waxaa ila tahay waa ku maqan yihiin qaar ka soo jawaabayna waa jira oo qalab keenay oo masalan shirkadda la yidhaahdo weerad remit ninka laha mulkila ismaaciil hadda wuxuu keenay qalab gaaraya milyoon uu dowladda ugu deeqay iyo intaa labadeed oo uu keenay suuqa uu leeyahay dadka waxaan kaga iibinayaa halkii intii aniga laga soo siiyey intii uu China ka joogay si qof waliba mask iyo gacmo u gar raashin baa loo baahan karaa dawooyin baa loo baahan karaa qalab intaa ka weyn baa loo baahan karaa nin waliba wuxuu hayo sidee aynu awal hore uguma jiray kii $10 haya kii malaayiin haya kii 100 shilin haya waxa weeye account-ka lagu tagay waa tagay waxa kale oo gelinaa guddiga dhaqaaluhu inay waliba gundugiista dowladda ah dib isku noqonayso iyo meelihii kale waxay nooga imaanayaan iyo in la saadaariyo maxay dhaqaalaha iyo caafimaadka uu nagu saameyn doonaa mar labaad aanu mahadnaqo shisheeye sokeeye wixii laga caawiyay hawsha iyo intii ka howlgashay inta aan ka howlgelinina waa ina howlgalaan qof waliba xil baa saaran qof buu waanin karaa
dhalinyaradu xoogga dadka way u gurma karaan biyo meel lagu xidhaa haga ah qof meel fadhiya u shaqeeya ah haddaynu inaan haynin bahalaafka lagu xidho waanu tolan karaa marada shiidkaad ku xidhataa in badan bay kaa difaacaysa marka waxaan u baahannahay fikir iyo isku tashi ilaahay baa mahad leh maanta intaasaan kusoo koobaya farintayda mar labaad waxaan baaq u dirayaa gobolka meesha ceelaf weyn degmada iyo dadka jooga ee ishaya war maanta hawl ka weyn bayna haysa hawshiinana waa dheeraatay waxaan leenahay waxgaradka waa in dabka la joojiya wixii ciidamaayo wixii hawlay